waad mahadsantihiin saad nooga gurmateen waad mahadsantiin aad iyo aad baan iniga gudoono gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro ayaa soo gabagabeeyay khilaaf ka taagnaa deegaanada Tuurka iyo Ballayga ee degmada Lughaya oo ay ka jirtay khilaaf u dhaxeeyay bulshada deegaanadaasi murankaasi oo ka dhashay biyaha durdurka ah ee dooxada Qabri Baxar oo dhexmara labadaasi deegaan ayaa sababay dhaawaca hal ruux waxaana uu gudoomiyuhu bilaabay dadaalo uu xal waara kaga gaadhay khilaafkaasi kaasi oo kulamo gooni oo lagu xalinayo tabashooyinka jira laguna xakamaynayo khilaafkaasi la qaatay bulshada deegaanada Tuurka iyo Ballayga kulamo kadib gudoomiyaha gobolka Awdal ay weheliyaan laamaha amniga iyo gudoomiyayaasha degmooyinka Baki iyo Cali Xaydhe ayaa indhaha soo saaray mashaariicda dhinaca beeraha ay uga faa'iideysanayeen biyaha durdurka ee maranka dhaliyay waxaana uu xalkaasi gudoomiyuhu soo saaray qodobo dhowr ah oo xal u noqonaya khilaafkaasi maanta waxaanu soo afjaray arrin yaro mudaba isku horimaad hadal ka jiray oo ahayd biyo beeraha oo la yar kala xidhay waxaan ugu nimi goobta 3 kinaal saddexda kinaalkii u dambeeyay baan furay marka waxaanu furay beelaha dhagaasha ku yaala oo ay biyihii markii hore u tagi jiray yaraadeen oo la waayay way naga aqbaleen labada dhacba soo jeedintayadaas qoodii markii hore biyo ku waraabsanaysayna waanu ku qanxino way nala qaateen qoodii dambana way nala qaateen in biyaha ayana ku shaqeystaan waxaanu go'aankayagu noqday kow inaan dooxa biyihiisa horta cidina gaar u lahayn cidina sheegan karin aniga la humaaniga la weydiistayo ana xiranayo waxaas way ka baxeen biyahaas waa danguud waynu wada munaafacaadsanayna talabaad saddexda kinaal soo maray ka u dambeeyay halkaas aynu maanta joogno waxa loo furay beeraha dhanka xiga beeraha la Ballayga waa laba mashruuc ahayn Ballayga iyo Tuurka la kala ilaa Ballayga noo furay saasaanu furaanaya mas'uuliyadda ilaalinteedana waxa uu saaran ciidamada qaranka iyo booliiska jooga degmada gudoomiyaashu way joogan degmooyinka deegaanku waxa weeye wax lagu noqnoqdaa meesha ma jiraan go'aanku saasoo ku soconaya waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa duqeyda oo si wanaagsan markaanu hawsha isla galay nooga qaato noo aqbalay waxaan leenahay wax walba waxa ka weyn biyaha waxa ka weyn waxa la isu yahay baa ka weyn dadnimada ka weyn caloosha iska sii daaya waan idin ducaynaynaa khayr badan baan rajaynayaa inta kadib waxa iyaguna halkaasi hadalka qaatay gudoomiyaha degmada Lughaya iyo qaar kamid ah laamaha amniga waxayna tilmaameen wada dhinac lagu dhexdhexaadinay arrintii toola ka dhacday waxaana ku soo dhamaatay si wanaagsan go'aankii barasaabka inala wadaagi doona runtii xaaladuna xaalad nabada ayaa hadda ka jirta deegaanka imika waxaan joognaa waa dooxii Qabri Baxar waa goobtii shalay ay ka dhacday xaaladdu ay ciidanka iyo qoliyihii kale biyadoonka iska hor yimaadeen ee qofku ku dhaawacmay hawshaas oo maanta gunaanaday barasaabka gobolka Awdal kuna dhamaatay si nabadgelyo ayaa safgarada una xil saaray wixii dambe ee ka yimaada halka waxa xaalada inay ciidamadu mas'uul ka yihiin inay waajibaadkooda gutaan cidii soo dhaafta xadkeega anagu ciidan ahaan anagoo markasta gudanayna waajibaadkayga qaran waxaan diyaar u nahay inaan wixii hawla ee halka naga saaran sideeda u gudano shalay halkan xaalad baa ka dhacday ciidankii halkan ka hawl galay wuxuu gutay waajibaad qaran oo buuxa waxay kala badbaadiyeen laba beelood oo haddii ay iyagu isgaaraan dhibaatada ka dhacda ay xumaan badan abuuri lahayd inta kadib waxa madashaasi hadalka qaatay isla markaana u mahadnaqay maamulka gobolka Awdal iyo sidoo kale laamaha amniga qaar kamid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanada Tuurka iyo Ballayga iyagoona soo dhaweeyay heshiiskani ayaa waxay yiraahdeen haddaanu nahay dadka Tuurka waanu hanaynay waan ku qanacsanahay waanu ogolnahay waxa ay madaxda ku talisay waanu ogolnahay haddaanu nahay beesha Tuurka wax kasto naga dhacaba iyadu xukunkeeda fulisay annaguna aanu qaadanay hadii aanu nahay labadii dhinacba waxaan la rajaynayaa inuu noqdo taamaanta la gaaray tu lagu waaro waanu ku qanaanay waanan qaadanay hawsha khilaafaadka labada marshuuc dhex taalay
dawladdu ay soo afshartay bara saabka gobolka Awdal ayaanu mahadnaqaynaa waxa weeye go'aankii meesha ay ka soo saareen waan qaadanay waana ku qanacsanahay dib dambana uma dhicayo hadii Ilaahu yiraahdo waa Absalaan Bashiir Faarax Absalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama